subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale idin leenahay meel kastoo aad joogtaan xalay waxaa magaalada Garowe lagu qabtay xaflad lagu shaaciyay xilliga aftida dadweyne loo qaadayo dastuurka Puntland madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole oo xafladaasi ka qayb galay ayaa khudbad uu ka jeediyay waxa uu kaga hadlay mowqifkiisa ku aadan wada hadal dhexmara dawladda kumeelgaarka ah iyo Somaliland aqoonsashada maamul goboleedyada iyo dastuurka Puntland warbixin waxaa magaalada Garowe nooga soo diray arintaasi ku saabsan wariyaheena VOA Nuux Muuse Birjab xafladda shaacinta oo ka dhacday xarunta madaxtooyada ayaa waxa fadhiyay madax ka socotay labada gole iyo guddiga doorashooyinka waxaana goobta lagu sharaxay heerarkii kala duwanaa ee uu soo maray dastuurka iminka la ansixinayo oo la sheegay inuu horseedayo nidaamka dimuqraadiyadda guddiga doorashooyinka ayaa sheegay in ay u soo gudbiyeen madaxweynaha in la qabto aftida dadweynaha 15 bisha soo socota sida uu sheegay gudoomiyaha guddigaasi Maxamed Xasan Barre sharci baa loo dejiyay dalka soo shaqeeyay sharcigaas markan wuxuu awood siinayaa guddiga doorashooyinku inuu ka gaaro go'aan waqtiga la qabanayo xilliga la qabanayo doorashada kooban oo la isugu keenayo caasimada Puntland ergooyin ka kooban 480 xubnood sharci qabo madaxweynaha Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud oo hadalkiisa dhinacyo badan uu ku saabsanaa ayaa sheegay in meesha hadda la marayo ay ka mid ahayd ballanqaadyadoodii gaar ahaan in dadka ay doortaan madaxda awoodana loo soo celiyo inuu shirweynihii lagu ansixin la Constituency Assembly lagu ansixin doono dastuurka dawladda Puntland si rasmi ah inuu dhaqan galo lagu ansixin doono 15 bisha soo socota iyadoo ay wakiiladaas ka kala imaanaya dadweynaha oo si cad oo aan caad ku dahanayn dadka degan dawladda Puntland degaamadeeda ay ku soo xulanayaan wakiiladooda uga qayb gali doona shirweynahaas sida waxa qoraya dastuurkeena oo qeexaya qodobkiisa 141 faqradda koowaad ayaa qeexaysa Puntland waxay u baahan tahay si dawladnimadeeda u adkaysato marka loo yimaado shirweynaha Soomaaliyeed dastuurka dawladda federaalka oo aynu ka mid nahay la ansixinayo inuu keenu jiro madaxweyne Faroole waxa uu ka hadlay arimihii ugu dambeeyay ee siyaasiyiinta qaar ay ku dhaliileen ee ah kordhinta waxa kale oo uu qeexay dastuurka waxa uu yahay geedi socodkaas socda oo lagu ansixinayo dastuurka Puntland oo ah Constituency Assembly hore loogu ansixiyay dastuur kale oo caan ah oo adduunka dhan laga hirgeliyay dawladaha ugu waaweyn sida hadda Kenya lagu ansixinayo kan dawladda federaalkana lagu ansixin doono dhanka doorashooyinka maruu ka hadlayay ayuu madaxweyne Faroole sheegay in doorashooyinka soo socda ay noqonayaan nidaamka axsaabta badan nidaamkan democratization-ka oo aan wadno oo axsaabta badan loo socdo dad badan baan kalsooni ku qabin qofkii aan kalsooni dadweynaha ku qabini hadeerba ha iska joogo qaylada ha yareeyo waxa loo socday waxa weeye in dadweynaha wax doorto axsaab ay sameysmaan xisbigii guuleysta oo markaas doorashada oo ku adkaado oo isagu helo markaas madaxdii ka soo baxdo halka Puntland waxa ay dhalishay qaabka maamul goboleedyada ay u sameysmayaan waxaana uu madaxweynaha Puntland sheegay in ictiraafka dawlad goboleedyada aysan u madax banaaneyn dawladda federaalka kaligeed balse la marinayo sida uu sheegay nidaamyadii lagu heshiiyay sida hadda socota oo fawdada ah oo hadba laba nin intay computer fariisato ama email ay qaxooti wax ka qaataan oo dibadahaas ay isaga dhawaaqaan annagu maamul goboleed baanuna ama intay tuulo tagaan dhowr gabdha iyo caruuro iyo haween intay buuqiyaan umada kale inta kale ku diraan ay yiraahdaan maamul goboleed baanuna oo wax gacanta ay ku hayaan iyo cid kalsooni siisay midna ayeen jirin waxaas ma shaqaynayaan maamul goboleedyada tan waxaan u maleynayaa Puntland baa loola jeedjeedaayo waxa la rabaa in magac laga xumeeyo ictiraafka maamul damo sameysma oo dawladeed oo federaal ka mid noqonaya dawladda TFG-ga hadda joogta kaligeed ma badax banaana nidaam baa jira lagu heshiiyay road map baa jira waxa jira principalka Garowe 1 iyo Garowe 2 wali qabyaha in kala sii dhiman wada hadalka Somaliland iyo Soomaaliya ayuu madaxweynaha Puntland soo dhaweeyay inkastoo uu daba dhigay shuruudo ay ka mid yihiin dhulka lagu muransan yahay ee Puntland iyo Somaliland iyo in Puntland ay miisaanka dalka tahay Somaliland hadal la furo wax la doonayo laakiin waxa jira cid bay wax ka dhaxayaan Soomaaliya oo dhan wax waa kala dhaxayaan laakiin cid bay wax kala dhaxayaan 99% waa cid ay deegaankeedii qaar haysato dadkeedii dagaal la gashay
oo ay dagaal la hor fadhido sida Kalshaale kuwii ka dhacay dagaalkii ama Buuhoodle ciidamada haddeer meeshii deegaanada biyaha ay hor fadhiyaan haysashada laascaano iyo colaadda kale oo markasta laga hadlo oo nin walba khiyaarkiisa waxaan ahayn rag inay ku qasbaan taasi hore u shaqayn weyday dawladda xooga waaweyn isticmaalkii ka shaqayn weyday Soomaalina laftigeedu isma isticmaalsan karno wax kasta oo Soomaaliland la galaayo haddaan Puntland ku jirin waa wax kama jiraan annaga miisaankii hadda maanta ah hadalka madaxweynaha Puntland ayaa iftiimiyay xalay in doorashooyinka soo aadan ay noqonayaan qaabka axsaabta badan iyadoo ka hor ay dadku hadal hayeen doorashooyinka soo aadan iyo noocooda xilli dalkana ay soo gaarayeen siyaasiyiin ka madax bannaan maamulka oo isu soo taagay madaxtinimada xilli aan weli axsaabta ama ururada la furin Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe